السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ضاوض يا كيما ملو بود جوتان كسر هذا برنامج جارة وكسر بندقة إنه برنامج متى كدعي من قالة كيبتون اللي كسر جدي دليل كان حندرة ده اللي يجوستو سومالي كنا ودك سود أفريقيا ما أنتوا جماعة وهل كان يسكسوا بحي وحرنت البرلمان كودك سود أفريقيا يريديسا مغلال سومالي أقوى وكثير يسنا فلكي نحن تلاها دوان كدعي إن سيدا دارك سنة صور كان إن كم مقطع وإن نين نجح اللي ودي له يو طبعا سيد الشيخين وويل سوماليا إنكستو ماركت عندهم البوليس ويبينين حضرنا ساكي وحلقة سوسة بحب بقولال ددوينا أو كتير يسنا فلكا إنه كسر بندقين سوور هذا فرب بدن أو تيرايو ضد كوف الدنيين إن سيدو كله إن وحن كسر قادم دون برامج كا إن عدد كلا دوان كاسيو هالليا يوليبا إن هوين هذا فرب بدن أو يوينا أو المينيا سلامر كان كحول لبعض السوقرتي وطبعا مركان داوتان هذا أركي دونتان إن يادو كحولين فلكاسي يوليبا إن سيدا الدرين كودو يهاي iyo sidoo kale madaxda jaaliyada barnaamijka inta aan ku guda jirnana sida ay kula socon doontaan insha Allah waxaan idin soo gudbinayaa anigoo Cabdullaahi Qorshe just like you we are not animals we want protection we want peace just like you we are also human beings we are not animals just like you we also need protection we want peace we want protection we are also human beings just like you we want peace we want protection we want peace just like you we are also human beings we are also Africans we are from this country just like you الدوينة كله وحنا نقعد سنة إله سبحانه وتعالى لنا كتر بلنا إنه نقعد يدبتون سو أفريقيا إنه هايسو حقوق لأنت إسلام كمال وشغله وحنا كبر إن الناس الدعيان إله سبحانه وتعالى إنه تنقصاره حقوق لأنت أنجز تدني أم فقر إنه هاي أم سو أفريقيا إنه نقدر يسوي discrimination تلاقي تنفع واسين كل تشوفين أنت أصلا نقول كتر سنة وصلنا قصة فلان وهبين كي مهردنا المها سو أفريقيا جوا وأقام أبوه ضيق قلي بس حنا مش شقيسان كرنا مركان شقيسان إن وين دعان ويفرق وين دعان سوماليا وحن كعد سنة ضد سوماليا جوجا إسبوع سنايو بليس إن قانسية وحين لا دشناقه اللي يعني حكم غير قبل نودي سنة وطن كان نون نبدأيان ورصاص عناي قناة رجع قال عبد قناة الله هو وطن كصار أفريقيا سداد سنة جوجا وحن لبعته وطن كم هاي سنة شرع ما هاي سنة نلال ما هاي سنة رجعيني ولا لا ما هايني عيالنا إني لصاور هذا اللوكاشية دي القوة الجوجا ورعي ومد عريانية مد رحمة الله في إن شاء الله أنا كبح نور إلهي كبر يا مد أنا لهم بعد نقصاري كرا لكن سوماليا هداتين دولتنا والنقص حتى وإحنا ما نقبل أول نحبط يقع وطن كأنه قصة الرماش أن منا وحن Memorandum of grievances from the Somali community of South Africa in the Western Cape to the President of the Republic of the Western Cape, to the President of the Republic of South Africa, to the Speaker of the South African Parliament, Your Excellencies, the Somali community in the Western Cape is deeply grieved by recent lootings of Somali shops in Gauteng and the Eastern Cape, and the brutal murder of Abdi Nasser Mahmoud Goth, a 25-year-old Somali trader who was stoned to death by a mob in Port Elizabeth on 30 May 2013. We join the Somali diaspora across the world to express our frustration and concern over continued violence against Somali nationals in South Africa, and to demand answers from the South African government.
instead of gently addressing crime and xenophobia against Somalis and other foreign nationals in South Africa, the government has responded by implementing xenophobic measures. South Africa waxaan ka codsanaynaa inay dadka walaalaha dhibaatada ay ku hayaan cawiya casir maalin kasta ay qalanayaan in la stop gareeyo waxaa loo inaayay sidii baa ku muhiimada halka maana ka tahay anaga waxaan soo baxnay Soomaalida yarkii la dilay dhagaxa lagu dilay si foolxumaa loo dilay in kastoo Soomaalida badan markasta la dili jiray haddana tan way ka duwanay dilkii nolol geysan jiray iyo dhibaatadii nolol geysan jiray waxaan aragnay anaga wadankan ku aragnay wiilal Soomaaliya inta xabad lagu dhuftay haddana la gubay waan aragnay kuwa inta dib lagu qowmaaga dib ka soo badbaadin haddana xabad lagu dhuftay waan aragnay haddana la ka dhacday inooga foolka xumeed ee haddana soo marto haddii aan nahay Soomaalida ku nool South Africa haddaan nahay dhibaatadii noogu dareed ee soo marto aan aragnay waxay ahayd wiilkan dhagaxa lagu dilay sida foolxumadana soo la jiiday dhagaxa lagu dilay ayaa nooga foolxumeed waxaan aad uga murugaysanahay boqolkiiba boqol walaalaha Soomaaliyeed meel walba kuwa la gubay kuwa la qalay kuwa dhagaxa lagu dilay ayaan aad ma aragtay aan uga xumahay waxaana u tacsiyeedinayaa dhammaan ehelada dadkaas ay ka baxeen kuwa la dilay kuwa la gubay kuwa la qalay xaalay u dambeysay laba walaalaha ayaa lagu gubay lagu gowracay South Africa marka waxa weeye dhammaan waxa u tacsiyeedinayaa waxa maanta iskugu imaanay banaanbax uga cabanayna dhibaatada nolol geysanayo dadka muslimiinta kulligood way ka wada cabaadeen dhibaatada nolol geystay wiil walaalkeen oo dhagax lagu dilay xala ugu dambeysay wiilal walaalaheen oo lama isla dhalataan waa la dilay marka maanta cabashadaas aan la imaano baarlamaanka South Africa hortiisa waxa weeyaan annagoo hawsha ku jirna oo mudaharaadkaasi ku jirna ayaa wali dhibkii nagu socdaa laba nin baa hadda la gowraco xalal la dilay dhibaatadaasina soo noqotay weeyaan South Africaankuna sidii xoolaha ay dadka Soomaalida u leynayaan marka wixii Soomaaliya ee wax dhibayaan taasoo sidaas soo aba macalgoomkii way noo diideen sharciyan wadankii ku tagna ma haysano dhibaatadaasi way nagu socotaa alxamdulillah maanta aad iyo aad ayaan uga soo qayb galnay barnaamijkan ummadda Soomaaliyeedna shucuubteeda ayay muujinaysay markii waxaan leenahay intaas dawladda Soomaaliya inay sidaas iyaduna nagu taageerto oo soo gurmato shacabkeedana haday meeshaas joogin codkeeda ay muujiso markii ummadda Soomaaliyeed waxaan leenahay gacmaha isqabsada midnimo ayaa horumar ugu gaaraya insha Allah taala Just like yours. Your blood is not cheap. Stop killing. ayaan ka hadlayaa arinta maanta halkaan isugu nimid waxa weeye hadaan dadka Soomaaliyeed rag iyo dumarba dad Afrika anagu uma aan soo doonan daareeda inaan fiirkirsan ama aan daawano waxaan u soo doonan nabadgelyo Ilaahay baa nabadgelyo leh balse nabadgelyo way noo diiday Afrilaanta saxragayga bay qalaysaa haweenkayga bay fuulaysaa gabar xaamila hataa way fuuleen way dileen way ceejiyeen rag Afrilaanta way gubayaan way hantida iyada way dhacayaan maxay ahayd Ilaahay
haddii kuugu rayahay ragga waa laynayaan waa gubayaan waa qalayaan habeenka xadhiya ugu dambaysa laba wiilo isku aaba ayay gowraceen oo hilibkooda jira oo banaanka dhigeen annagu marka dowladda South Africa dan waxaan u hayno maanta oo feebra ama gacalaha ma jirto haddii ay dad maxay to ay bini'aadnimada dhexdeeda tahay wadankayga hooyo ha noo celiyaan maxay to hanana taadkurayaan annagu ma doonayno daarahooda inaan daawano adduunka Amerika iyo Yurub meel dadka Soomaalidu way joogtaa foreign way joogtaa nabadgelyana lagu haystaa South Africa ayada Afrika oo shalay madaxweyne ugu horeeyay Maxamed Saad Barre raxmalaasiye oo madaala xabiska ugu yimid oo ku soo daawaday maanta inuu madaala dadkiisa la laayo no ma ogolin waana diidanahay haddii aan nahay dadka Soomaaliyeed South Africa ku nool waxaan doonaynaa rag iyo dumar bana dawladdeena codsi iyo baaq u dirano maxay tahay madaxweynaha Soomaaliya oo arrintan ka hadlo oo gogol ka dhigto wasaaraha dowladda Soomaaliya inay gogol ka dhigto arrintan oo South Africa ay xal marina ragayga dhiigooda inuu sida ay naga dhaceen noo soo celiyaan dadka ay naga laayeen iyo maxay tahay noo geysto South Africa ay aragto ay indhaheeda ay kala furto anagu Afrikaan baan nahay ma nihin duub cad Soomaaliya madow baan u leenahay nastaabe wala xoolo waldaa walaal meeshan waxaan joogaa 10 sano dhibaato ayaan la kulanaa 10 sano anoo joog 3 carruur ku dhal ilaa hadda sharci ma haysti rajagti baa la soo siiyay misana nolol fiican lagu ma haysto dadkina waa la baabiinaa saan baa loo gorgoracaya ugu bilaabay magacayga liira Cabdicasiis Cali Muxuu kuma dharbi jacbaan oo ku noolaa gaar ahaan Western Cape gaar ahaan Cape Town gushin liiraaho kala footiin dhaawacna soo gaaray muddo laga soo joogo 20 biri dibna uma arka dad soo raadayna ma arkin waxa ku joogaada magaalada Biafal askaaga noolahay labaatan sano isoo gaartay dawladda waxa ka cusbanaya inay gargaar inay noo soo fidi doonaan okay maanta inta ayaan kusoo gabagabayn doonaa guud ahaan barnaamijkeeni gaarka oo kaga hadlaynay barnaamij maanta ka dhacay magaalada Cape Town oo caalamka oo idin sidoo kale barnaamijyo lamid ah kaasi ay ka dhaceen inta barnaamijkan lamid kulmi doonno waxaan kaga tagayaa sida ay nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh.